naag baa dusha istaagan anigana lugtaana dhigaa lugta kale u geeya taanaan dhigaa tan tii ku xanuunaysa oo kale ayaa kabtaa hoos markaan tagay ii saabis I'm proud of you What true story daawadayaal kusoo dhawaada mar kale ee barnaamij gaar ah maanta waxaan la joogaa marti nooga ah oo magaalada Seattle ku sugan comedianka ama Soomaaliga ninka ugu magac dheer ee loo yaqaan Mataan waa soo wada garanaysaan Mataan waa magaca horta kuma yara magaalada Seattle maanta la joogaa oo xalay xaflad aan heer sare ka dhacday Mataan kusoo dhawaada barnaamijka maanta waa dhawaad Maxamed Mataan waxa nooga warantaa magacan horta marka mar walba kaftana sheegayso oo kaftamayso waxa isticmaashaa true story waxa uu ka yimid والله true story waa sheeko dheer true story comedian isbadana jiro marka ma sheekooyin sheega ama fayga ama waxyaalaha aan dhicin aniga waxaan goostay marka inaan sheeko runa oo aniga igu dhacday ama nin saaxiibna ku dhacday ama nin oday oo mutaqaana aan xushmeynayo sheeko ku dhacday badan aan sheega صح waxyaalo yar yar oo kale oo jooga oo magaalada aan ka sheego waa jira صح oo true story ahayn laakiin marka dadku waa caadaysteen true story dadana waa wada qoslayaan صح warun dadka badan ama mid walba wuxuu leeyahay waxyaabo caan ku yahay comedianka halka mar laakiin kaftankaaga uu ka duwan yahay kuwa magaranaysa waagii hore oo Soomaalida loo yaqaanay ku kaftami jireen ama qaab wuxuu leeyahay reer galbeed oo kale iyo Soomaaliga isku dhex jira soo marka dadka soo dhaweeyaan marka kaftanka noocaas oo kale sheegayso waxa waaye ardaxooda waa adag tahay comedy stand Soomaali صح ina samaysid ninkii isku dayana arrintanka inuu successful ku noqonayo sababtoo ah waa difficult waxa laga yaabaa anaga diin wax kama sheegi karno dumarka wax kama sheegi karno hadalkaaga carruur baa fiirsanayso marka badanaaba selection baan sameeyaa oo waxaan dad offending gareyn ama dhibaato u keenayn ayaan sameeyaa waxayna tahay mataqaana badanaaba wax dadku ay xiiseynayaan oo markaas casriga la socda ama wadanka ka dhacdo ama wadanka gudihiisa wadanka wadamadan joogno ayaan doortaa صح waxa arkay marka comedy sheegayso dadkana aad u jecel yihiin markay ku dhageysanayaan marka ereyada materialkaaga ay ku jiraan qaabkii qabiilka oo kaftan ahaan laga dhigayo yani marka kale Soomaalida markay isku yimaadaan qabiilada marka la sheegayo qof walba sensitive ku yahay ama la isku qabsado ama la isku dagaala laakiin adiga comedy story ahaan baad u sheegaysaa wixii dadkiina way jecel yihiin ma sax waaye hada qabiilku san aaminsanahay Soomaalida waa ka xoog badan yahay diintina waa ka xoog badan yahay mataqaana Soomaalidina waa ka xoog badan yahay صح waxa laga yaabaa ninkii qabiil inuu ku dagaalamo ama wax yiraahdo marka aniga qaabkan u sameeyo waxa waaye magaalooyinkan sheega magaalooyinka dadku badan waa la yaqaanaa qabiilkii waxoogaa dadban ayaan joog ka sameeyaa dadkuna waa jecel yihiin dadkii street uma aado waa marka kaliya arko qabiil inta la sheego haddana dadkiina qoslayaan oo kaftamayaan marka kale oo dhan waa dagaal marka la eego qabiil marka la sheego ma sax waaye marka qabiilka haddaan toos u aadin صح waxa waaye hal qabiil aan saarnayn true story ku jira true story ku jira dadku u qaybinaysid dadku waa jecel yihiin ku qoslayaan صح materialka marka adiga marka waxaad qortamiya marka kaftanka dadku sheegayso badana marmarka qaarkood ka soo fikra waa qoraa inay magaalada tagaysa magaalada dumar u badan carruur baa u badan wadaada u badan mid kalena dad saaxiibanahay waa ku alifaa markaan arkabo dadka qaarkood waa ka dhuntaan صح safaradaada magaalooyin badan baad ku kala tagtaa hadda waxaad ka timid Canada ka timid Seattle baa imkan ugu la sugan tahay safarkaaga dambe wax weeyaan waa Atlanta Georgia marka magaalooyinka xiiseesa badan aad u jecesha wallahi horta Seattle aad u mahadsan yihiin si fiican ay soo dhaweeyeen dad fiican oo khayaaran la kulmay barnaamij fiican oo saaxiibkay walaalkay sulub uu sameeyay waa ku farxay dad badan oo khiyaarana dadku waa bislaadeen صح magaalooyinka lagu cusub yahay waxa laga yaabaa wadanka hadii laga yimaado ama Kenya laga yimaado dadkii inay xanaaqaan laakiin wadanka marka muddo la qabsatid dadku mataqaana waa ku soo dhaweynayaan Ohio kale mataqaana Toronto kale
dad odayaal buuxa والله في هراء والله في horaa صح ma jirta kaftan adigu markaad meelaha aad tagto aad sheegto adigu aad jecesha ma jiraan online waa jiraan waxyaalo badan maxaa kamid ah waxaa kamid ah waxa u dhaco kale muddo badan aan waddankan joogay muddo 40 sano iyo ka badan baan joogay marka personal waxa ugu dhacay jira waxaas dadka inaan la qaybsado ayaan jeclahay maxaa kamid ah ma noo sheegi kartaa waxaa kamid ah hadda koorna waa sheegay maxkamad baan ka tarjumi jiray Atlanta Georgia marka Soomaalida waa aragtay gabar aan qaraabanaha la keen gabadha marka aan turjumayo waxay rabaan badanaa Soomaalida ma yaqaan maxkamadaha in laga xanaajiyo si hadhow credibility-gaaga loo baabi'iyo leeyahay qofkan waxa isu sameeyay waa dhaqanka Mareykanka sax annagana maxkamada ma naqaano gabadhii su'aalo la weydiiyay waxa kamid ah waxa la yiri su'aalaha hadii wax ku dhimaay diintaada iyo dhaqankaaga iyo adigu kuma dalnayn yes or no aniga Soomaaliya ugu turjumo waxaan wax kasta lagu weydiiyo la wadankan ma shooda yes or no ma iska ama haade sax si sheekada la weydiiyay gabadhii waxa la yiri adiga prostitution lagu qabtaa la yiri tigid lagu siiyay hadda gabar Soomaaliya qaraabatihiin waxaaqsan su'aashaas soo ku dhigi kartaa marka adigu waxaan adoo jirkaaga ganacsanayo weliga ma lagu xeeray tigid lagu siiyay jawaabta sugay ma ahayd moogta for you better you su'aashaas meel walba ku jirtaa meel kasta ku jirtaa sax adiga la beegay cad doqayo haddaan lagu dilin haddaan ma cali diray dadkana ku weydiiyay su'aasha meesha ku jirta macnaheedu marka Maxamed waa adagtaa wallahi waa dhaqanka isfaham la'aanta ma jirta marka xafladaha dhigayso ama meelaha aad kafta ka sheegto mid ay dadka badanaa ay ku weydiiyaan ay jecel yihiin mar walba inay maqlaan taan maxaa kamid ah taas waxa badan kamid ah nin aan saaxiibna dacayadeeya صح mataqaanaa noogu soo celiyo ku yiraahdaa noogu soo celiyo yiraahdaan wateen maxaa kamid ah wixii dhacay marka waxa waaye كان هذا كور تكن صح نكال صاحب كان هاي عيارتوي وها وجنيو عيار جري دتك دن way yaqaanin marka tagna waxa yarneeyo xuduud marka la galay magaca Mareykanka immigration amal kasta su'aasha lagu diyaar laga jawaaba magaca hada magacaaga la sheega maxamed oo kala reedaa what's your last name Ali ninka bad iska gala صح waxa loo dirsan marka xuduud istaagay I used to play for Genio LLB عيار جري horgaalada jeey ma xigay qani ana asagi baawro lagu tiiriyo huban la ka baad marka maashi magac laga weydiin asna wuxuu galay taariikhdiisa galay صح historygiisa aan loo joogin صح maanta maadaama aad siyaasada nagu la sugan tahay kaftan aanay wali dadka maqal oo jecesha inaad sheegto ma noo sheegi kartaa wallahi koo badan baa jira nala wadaag kaftan kana waxa wanaagsan adigana iska balwadid صح hadda ka hor baa jilibkana laga hayay banooni ciyaaray anigoo tabcaana hadda nin yarna ma ahi baan meel jaranjara ka soo degay صح mool baan tagay waa ilaa 12 daqiiqo iskaleedik socdo uma jeedaba aniga mid kale oo dadka dhalinyarada ay ku ordaan ama dad wadnaha iyo pacemaker iyo wax ugu jira oo loo ogolayn in jaranjartaas electric maraan صح kiiban ka soo degay dadkan marka cadaanka ama Mareykanka waxaan ku jeclay qofka dhibaatada haysto encouragement siiyaan صح anagana waaba caynaa صح aadiyaad ha la waa dhaqankeena ha diinayeen naag baa dusha istaagan anigana lugtaana dhigaa lugta kale u geeya taana dhigaa tan tii ku xanuunaysa qabo ay qabtaa hoos markaan tagay ii saabis aan baraan of you what true story taas weli ma sheegay laakiin Maxamed aad ku sheegay caadi ma beautiful wax loo baahan yahay sida dhaqanka u kala duwan yahay marka ay ka mid tahay waxyaabo la kulanto aad iyo aad bay horta naga ilbaxsiin dadka reer galbeedka inay kooda taageeraan qof balki innagana waan la hadnaaba mid magac ugu yeerna hadda kalba isticmaashay qof jiis loogu yeeray iyo marka loogu yeeray qof ilaa baalada qof gacan iyagana waxa ka mamnuuc gabagabadii barnaamijkan soo gaarna maadaama aanu jecel nahay comedianka weyn inay mataan inuu la sii joogo waxyaabo badan nooga waramo iminkan ereyga ugu dambeeyana siinayna insha Allah maadaama magaalada reer Seattle ay jecel yihiin inay maqlaan dadkan fursad u helina kulle marka dambe heli doonaa
maxaa ku oran lahayd reer Seattle gabagabadii barnaamijka reer Seattle hadda ka hor waa sheegay kumadiga ku jirta صح hadda Soomaali intaysan imaanin naaniyadii wixii ka dambeeyay Soomaali soo galeen صح baan imid hal maqaayad baan ka furnayd maqaayadii ma sheegi karo meel ahayd markaan tagay niman odayaal oo imid waa salaamay Soomaalinimo aniga weliga qabiil kuma hadlin صح nimanka waxay yiraahdeen waryaata waa naxaa aniga marka صح marka Seattle hadda wixii waa ka baxeen wadanka waa la qabsadeen community badan laakiin mid kale shalay maqaayad baan tagay meesha kofee ka siin lahaa markaan soo fariistay maraqaysi reer Seattle ilbaxnimadu waa sidee maxaa dhacay وانا عابسين marka aad u mahadsantahay maxamed adiga iyo taqaanaa iyo sulub dadkii soo dhaweey vitamin قدومي محمد احمد سلم نون سلامينا maadaama isagoo qaban qaabada barnaamijkan aad iyo aad uu ku lahaa hawshan xalayna xaflada heer sare ka qabtay magaalada Seattle dadweynaha aad u soo dhaweeyaan marka aad baad ugu mahadsantahay inaad naga qayb gasho sanadka dambe insha Allah kan iyo mid ka weyn insha Allah maxamed aad u mahadsantahay aad iyo aad daawada idinka aad iyo aad baad mahadsantahay Seattle salaam alaykum